tusaale hadda waalidiinta oo kale way noo yimaadaan markay noo yimaadaan waxay leeyihiin dugsigiinu ma looxba haabaan dhahnaa marka waxaa laga yaabaa marka ilmihii inay la noqdaan. waa mid ka mid ah dugsiyada lagu barto quraanka kariimka. ardaydan dhigata malcamadan waxay quraanka qoristiisa iyo akhrintiisaba ay ku bartaan looxa. in kalaamka alle lagu dhigto looxa waa mid soo jireen ah oo Soomaalida weligood lagu yaqiin, balse waayadan dambe waxaa yaraaday dugsiyadii quraanka ee lagu baran jiray looxa. Macallin Axmed Cabdullaahi wuxuu muddo sanadaha ardaydan quraanka ku barayaa looxa. wuxuu tilmaamayaa inay jirto caqabad xilligan haysata dugsiyada qaar ee lagu dhigto quraanka. aad mahadsan tahay. waxa weeye dugsigu hadii kulay dadku Soomaaliya hadaan nahay ama islaamka waa la wada yaqaanaa. dugsigu waagii hore iyo ummadihii hore waxaan ku soo baranay loox baan ku soo baranay quraanka. aniga hadda idin la hadli quraanka 3 jeer loox baan ku bilaabay oo ku dhameeyay. hadda sawaayahan dambe waxaa timid looxii xoogaa inay laga gaabiyay oo xoogaa niyadii ay xumaatay. quraanka barashadiisii iyo ihtimaamkii la siin jiray inay macnaha aad u gaabatay. tusaale hadda waalidiinta oo kale way noo yimaadaan markay noo yimaadaan waxay leeyihiin dugsigiinu ma looxba haabaan dhahnaa marka waxaa laga yaabaa marka ilmihii inay la noqdaan. sababtuna waxay tahay waxay dhibsanayaan ilmahaas macnaha qadu ay midalan kaga daadan hayso oo kala dharka oo laga yaabo dharkii marka dhaqitaankiisa waxoogaa inuu cuslaado. waalidiintii hore marka waxyaabahaas xumayna u arki jirin. waagii hore waxaa jiri jirtay madrasada intaas oo ilmood oo xaafidiin inay ka baxaan. sababtuna waxay ahayd looxa quraanka lagu baran jiray. looxa wax lagu barana aad iyo aad buu macnaha xagga fahanka iyo macnaha u soo dhaweynaya. Anas Axmed wuxuu ka mid yahay ardayda dhigata malcamadan. wuxuu ka hadlayaa ka arday ahaan waxay ka dhigan tahay in quraanka uu ku barto looxa. aniga waxaan ku soo bartay horta wiliga buug waxaan ku baran waxaan ku soo bartay looxa saayid u fududahay in wax lagu barto. midda kale qofka looxa inuu ku barto wuxuu ugu fududahay maanta niyadiisa waxa ku jirto waxaad shalay dhan ku soo firdaalis maanta inaad ka kabsatid ayaa loo baahan yahay. marka qofka maanta shalay wuxuu soo riiqay qadiyo soo xoqay iyo looxiyo dhaqay wuxuu ku bedelayaa inuu wax barto oo quraanka oo ku barto. sababtoo aniga inta la ka isku bartay looxan ka isoo dhan iyo qoraal looxa ku bartay. looxa iyo fudud bina wax ku qor. Roodo Maxamed waa mid ka mid ah waalidiinta ay caruurtooda dhigtaan dugsigan. waxay ka hadlaysaa sida ay u aragto in caruurteeda ay quraanka ku dhigtaan looxa. aniga oo aad ugu faraxsanahay dugsigan ilmahayga inay dhigtaan qada ah walow qadii hadda laga suulay oo markaad aragto maxay Soomaalida ay ka sil waxyaalaha min guurka oo Soomaalida ku dhacay ee kamid tahay in dugsiyada qada lagu dhigaa ay yaraadaan. hadan dugsigan qada ilmahayga dhigtaan aad ugu faraxsanahay. 4 cunuga ayuu joogto 3 way ka dhameen quraanka tii afraadna hadda ay dhameen rabtaa 100% ma sha Allah tabaaraka Allah leeyahay. dugsiga qadka lagu ma gaaro xifdis hadii la dhaho hadii dhinac xifdiga la dhaho iyo hadii fahmada cunuga la dhaho hatta akhlaaqda cunuga qada ku dhigto iyo cunuga kale hadda buugaagtii jeestoonka lagu qoraa isku ma dhawaay. cunugan aayada quraankeeda waa loo yeerinaya uu dhigaya uu sii yeerinaya yeeris intaas hatta maskaxdiisa ku celceliska hatta xifdis ahaan dhan kasta waxa fiican looxa. anaga looxan ku soo baranay dadkeenii hore waalidiinta dhamaan looxa ayaa lagu soo baran jiray quraanka. waa arin jirta inay aad u yaraadaan dugsiyadii quraanka lagu dhigan jiray looxa. waana arin u baahan in la helo xalkeeda maadaama qof walba oo quraanka ku soo bartay uu og yahay muhiimadda arintan. moodalkii elektaroonig ugu mudnaa marna aan laga maarmin waxaa kuu mideeyay oo meel qura isugu keenay shirkadaha Macquul iyo TCL Electronics muraad oo marnaba ha moogaan. faranjiyeero mug weyn iyo qasaaladihii la mahdiyo marna aan laga maarmin kuu karko ka sii mudan waxaa ka maqsuudiyo meel qura isugu keenay shirkadaha Macquul iyo TCL Electronics muraad oo marnaba ha moogaan. shirkadaha Macquul iyo TCL Electronics waxyaabaha aad ka helayso waxa kamid ah mukeefyada aan looga maarmin guryaha xafiisyada iyo goobaha muhiimka ah sida TBB iyo TCL oo ah kuwa safe energy waqti badan ku haynaya. waxaad kale oo shirkadaha ka helaysaa faranjeerada Supernational iyo TCL noocyadooda kala duwan tayadoodana la isku haleyn karo. sidoo kale shirkadaha Macquul iyo TCL Electronics waxay ku diyaariyeen qasaaladihii ugu dambeeyay oo casri ah isaguna jira Supernational iyo TCL waana kuwa automatic iyo manual ah. waxaa intaas dheer ku karada Supernational oo ka kooban yar yar iyo waaweyn iyo waliba dhalooyinka TV-yada oo kala jaad ah.
shirkadaha macquul iyo TCL Electronics waxay ku yaalaan suuqa weyn ee Bakaaraha gaar ahaan wadada shirkadaha waxaana dhanka bari ay ka xigaan daarta mustaqbal wixii faahfaahinta dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda قم بنا وانظر لآيات الجمال